bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal 1 cali axmed guure cali qoyane ina madiino cali oo maqana ah 2 nuur ibraahim mahad alla 42 jir ah ina faadumo xaaji maxamed ku dhashay hiiraan 3 cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale 57 jir ah ina ambiyo sheekh axmed ku dhashay maxaas kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab iyo in ay qarax miino ku dileen marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas dambigaas oo ka dhacay degmada Maxaas 19 bishii Afraad 2019 doodeer kadib maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka eedaysane nuur ibraahim mahad alla oo ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in qarax miino oo ay u soo dhiibeen kooxda al-shabaab uu geeyay degmada Maxaas qaraxaas oo uu geliyay kuna qarxay maqaayad uu fariisan jiray marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu in ka hor inta uusan qaraxa dhicin ay kulmeen eedaysanaha saddexaad cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo u sheegay in uu khilaaf kala dhaxeeyo marxuumka markay aragtay maxkamaddu qoraalka eedaysane cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in ay kulmeen eedaysanaha labaad nuur ibraahim mahad alla inta uusan qarax dhixin ka hor iyo in ay jirto in uu la xiriiray markii la xiray kadib lacagna u tuuray sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu la soo xiriiri jiray eedaysanaha koowaad cali axmed guure cali qoyane oo ka tirsan al-shabaab kana wada hadli jireen arrimaha deegaanka markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in markii uu dhacay qaraxii uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenka kadib ay soo xireen eedaysane nuur ibraahim mahad alla markii ay wareysteenna oo u sheegay in uu isagu keenay qaraxa degmada Maxaas isla markaana uu isagu ku aasay goobta uu fariisan jiray marxuumka sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu u sheegay in qaraxa uu u soo dhiibay cali axmed guure oo ka tirsan al-shabaab markii uu imaaday degmada Maxaasna uu ku soo xiray eedaysanaha saddexaad cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo markii ay kulmeen u sheegay in qaraxa loo dhigayo marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale maragu waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisu uu ka dhaxeeyay khilaaf la xiriiray maamulka markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad 2 sawirka marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas oo geeriyooday 19 bishii Afraad 2019 3 codad cadeynaya xiriirka eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile cali axmed guure cali qoyane oo maqana ah 2 dambiile nuur ibraahim mahad alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi 3 dambiile cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan wabillahi tawfiiq